السلام عليكم وقيب كلا iyo wadamo ku haboon in la booqdo haddii aad fiirisid khariidada adduunka waxaa jirta in wadan walba wax uu gooni la yahay ay jirto sida wadanka Talyaaniga oo gooni la ah cuntooyinkiisa iyo Masar oo caan ku ah ahraamta laakiin wadamada qaarkood oo kaleeto waxaa lagu yaqaanaa waxyaabo khaldan sida wadankan oo dagaalka lagu yaqaano iyo wadankan oo faqriga lagu yaqaano tusaale ahaan u soo qaado wadanka la yiraahdo Vietnam filim walba buug walba iyo qoraal walba oo laga sameeyo aan akhriyay waxa uu ka hadlayaa dagaal oo kaliya laakiin ogsoonow dagaalkii Vietnam waxa uu dhamaaday 45 sano ka hor laakiin dadka hadda halkaasi ku nool waa Vietnam maxay sameynayaan waa inay jiraan wax kaleeto oo aan dagaal ahayn si looga jawaabo su'aashaas waxaan naftad ahaantaydu aaday wadanka Vietnam waxaan ku soo arkay wax guud ahaanba ka bedelan dagaal waxaan meesha ku soo arkay koofee ama bun ma jiro qof ii sheegay arrintaas laakiin Vietnam waa wadanka labaad ee ugu dhoofinta badan gaar ahaan dibadda u dhoofiya koofeega adduunka waxay ka badan yihiin Colombia iyo Ethiopia koofeegoodu wuu ka duwan yahay koofeeyada kale ee adduunka ku arkay waxa mararka qaar lagu daraa caano la qaboojiyay ama qumbe ama sidoo kaleeto ukun حتى dadka aan iyagu cabin koofeega ama bunka way la yaabayaan dhadhanka la yaabka leh ee koofeegaas waxa sidoo kale cajiib ah oo ka yaabinaya qiimahooda wadanka Vietnam waa wadanka uu qof walba oo dalxiis kara ama raba inuu dalxiis aado uu awoodo inuu aado hoteeladooda waxa lagu seexdaa oo kaliya $12 habeenkii cuntadan hadda u jeedaan oo intaas tira leegna waa $4 oo kaliya tani waa qiimaha aan ku arag wadan kale oo aan hore u booqday maalintii ku xigtay waxaan aaday magaalo kaleeto waa Hoi An Vietnam waxaan arkay dukaamo kala duwan kuwaas oo iibinaya dhar noocyadoodu kala duwan yihiin magaaladana waa magaalada hogaaminaysa dhanka tolmada ee adduunka waxaad dooranaysaa nooca iyo istaylka aad rabto iyadoo lagu cabirayo 10 saacadood ama ka yar gudahoodna waxaad u ekaanaysaa qof kaleeto saana loo ekeysiyay saana u ekaaday waana sidan qiimahooda oo dhan intaani waa $50 oo kaliya waxaan ku labisay oo kaliya $50 magaalada ayaanad u dhex soconaysaa sidii adiga oo ku labisan malaayiin dollar adiga oo ku raaxaysanaya ammaanka iyo dhaqanka xiisaha leh sidoo kale quruxda meelaha iyo dadka kala duwan intooda badani waa ay dhoola cadeynayaan waxayna diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan wadankooda oo kaaga waramaan taariikhdooda hello qof walba uu ku gacnaatay waa cajiib nasiib darrada dhacday ayaa in saxaafadda oo dhan marka ay ka sheekeynayaan Vietnam ay sheegaan dagaalkaas oo dhamaaday 45 sano ka hor muuqaalkani maahan oo kaliya Vietnam waa wadan kasta oo markaasi lagu bartay arrin khaldan kaas oo mar walba laga sheego marka xilliyada dambe ee aad maapka ama khariidada ka aragto Vietnam waxaan rajaynayaa inaadan xasuusan wixii laga soo gudbay waxaan rajaynayaa inaad xasuusatid waxa hadda la joogo waa inoo toddobaadka dambe muuqaalka waxaa iska leh Nas Daily anigu Saciid Khaliif ahna waa tarjumay